masjidka ugu weyn ama xarunta islaamiga ugu weyn ee gobolka San Diego ee dalkaasi Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa rasaas xoogan oo lagu furay inay ku geeriyoodeen ilaa iyo 5 qofood oo laba ka mid ah ay yihiin kuwa weerarka ku soo qaaday xaruntan islaamiga ah waxaana lagu soo waramayaa in weerar argagax leh loo geystay muslimiintii ku sugnaa masjidkaasi oo ay qayb ka ahaayeen caruur quraanka kariimka ah ku baranaya xarunta madrasada ee masjidkaasi booliiska wadanka Mareykanka ayaa sheegay in ay xadideen hanjabaadaha xaruntan islaamiga ah halka ay uga imaanaysay haddana ay ku howlan yihiin sidii ay wax uga qaban lahaayeen shir jaraa'id oo ay qabteen dhacdadan kadib booliiska magaalada San Diego ayaa waxa ay ku sheegeen kuna xaqiijiyeen geerida 5 qofood oo 3 ka mid ah lagu xabadeeyay gudaha masjidka halkaas oo ay ku geeriyoodeen halka ay sheegeen labada kale in ay yihiin tuhmanayaashii rasaasta ku fura masjidka oo iyaguna goobta lagu dilay waxaana lagu soo waramayaa in ay arintani argagax fajiciso iyo layaab ku abuurtay muslimiinta ku nool magaaladan weyn ee San Diego halkaas oo ay ku leeyihiin xarumo badan oo islaami ah iyo masaajido ay diinta islaamka iyo culumteeda ku bartaan waxaana lagu soo waramayaa imaamka masjidka in uu intaa ku daray isaga oo la hadlayay wargeyska New York Times in mid ka mid ah dadka goobta ku geeriyooday uu ahaa ilaalada dhanka amniga ee masjidka ama xarunta islaamiga ah waxaana lagu soo waramayaa xaruntan islaamiga ah ee weerarkan argagixiso lala beegsaday ay tahay xarunta ugu weyn ee muslimiinta gobolka San Diego waxaana lagu soo waramayaa marka masjidka ay timaadana in uu yahay masaajidda ugu weyn ee dalkaasi ku yaalo si taalamida ayay boolisku sheegeen in masjidkan ama xaruntan islaamiga qayb ka mid ah ay ku yiileen madaaris lagu barto culumta iyo sidoo kale quraanka kariimka halkaas oo ay xilligaasi ku sugnaayeen arday badan iyo caruur baranaysa quraanka kariimka iyagoo oo aan sheegin cadadka iyo tirada caruurta goobta ku sugneed iyo haddii caruur ka mid ah ay wax soo gaartay iyo in kale waxaana lagu soo waramayaa in dad badan laga soo badbaadiyay masjidka iyo xaruntan islaamiga sidoo kalena dugsiga quraanka iyo xarunta madrasadaba laga soo badbaadiyay caruur badan kuwaasoo la arkayay booliiska oo si degan caruurta fayl u geliyay kana soo saarayo dugsiga quraanka ay ku baranayeen falalkan iyo hanjabaadahan loo geysanayo xarumaha islaamiga masaajida iyo sidoo kale dadka soo galootiga Mareykanka ayaa sii kordhaysay iyadoo gruubada ama kooxaha cunsuriga ee nacab dadka soo galootiga ahna ay ku sii badanayeen kuna sii xoogaysanayeen wadankaasi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta dhimatay Allah u naxariista ayaynu leenahay haddaynu nahay bahda Somali Vision Norway inta dhaawaca soo gaarana Allah u booga dhayo halkani waa Somali Vision Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan idin la socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine